رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإيانا وإياكم من الفتن والضلالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله. hore waxaan uga soo hadalnay in ku soo guda jirnay isku baraarujintii bisha Ramadaan iyo khayrkeeda iyo fadligeeda iyo magaranaysaa in isku booriyo ayaan hore ugu soo jirnay. iminkana waxaanu guda geli doonaa insha Allah biidnillahi tacaala sidee baynu uga qanimaysanaa ama aan uga faa'iidaysanaa ama aynu uga maartay aakhiradeena uga taajirnaa bisha Ramadaan. waxaa rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadliga ramadaanta kasoo kooba xataa salaada fadliga ay leedahay ayaa xulay biaxyaai leylati bilqiyaami wa salaati taraawiix maca jamaaca. waa inuu qofku uu magaranaysaa uu ku dadaalo habeenkii inuu ku nooleeyo ramadaantii mar haddii bishii Ramadaan lagu jiro salaadii taraawiixda waa inuu ku nooleeyo maca jamaaca gudashadeeda waa inuu ku guto uu kuna camiro habeenkii oo dhan bishii Ramadaan. ورسولك عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له فيما ليلة قيام الليلة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام قفك استاغه الصفته إمامك ومركو يستوي لهذا لا الصفته لا سو كلمة إلا أنتو كدمين يا صلاة تراويح أما صلاة فرلقها من نقطبه أنتو كدمين يا نلتو كذا له waxa u sugnaatay qiyaamul leylati habeenkii oo dhan inuu kaanama inuu tukaday oo salaatul leyl ugu taagnaa ayay ka dhigan tahay soo rasuulkuna sheegay calayhi salaatu wasalaam. marka taraawiixda oo lagu tukado jamaaco fadligaas ay leedahay. waxa kale fadli leedahay adiga oo naftaadii aad ku tadabburayso qur'aankii la akhriyay iyo aayadihii dheeraa la akhriyay. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها أي الله سبحانه وتعالى. marka qulubtaada inay tadabburto ayaad markaa meeshii aad ka dareemaysa. faldigaana waa rasuulku sheegay wuxuu leeyahay haddaad taraawiixdii la tukatay saf aad la safatay imaamkii oo ilaa intuu ka dhamaynayana aad la tukatay waan 2 ragcadood 3 ragcadood 4 ragcadood intaas oo tukatay aan ka soo bixin oo min bidaayata ila nihaaya aad la fadhiday ama aad la tukatay imaamkii masaajidka aad ku tukanaysay waxay noqotay in lagu qoro habeenkaas oo dhan inaad qiyaamul leyl taagnayd. waa qanimaysi laga qanimaysanayo faa'iideysiga laga faa'iideysanayo. waxaa laga yaabaa saacadii badh ama saacadii 40 daqiiqo inay noqoto ugu badnaan 2 saacadood ka soo qaato. marka maxaa ka faa'iido badan maxaa ka khayr badan adigoo habeenkaas oo dhan lagu qoro inaad qiyaamul leyl taagnayd
adigoo 2 saacadood oo keliya soo tukaday ama saacadii bar soo tukaday. xadiiska rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam: man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban, qof alla qofka bisha ramadaan markay soo gasho istaaga ee tukada, wuxuu tukanayaa qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban, isagoo rumaysan haddana ajri xasanaad ku dalbanaya, oo uu istaagay ilaahay hortiisa istaagay, oo taraawiix soo tukaday, oo taraawiix tukanaya, oo faralkiisii haddana sii tadabbur iyo khushuuc haddana u soo tukaday, oo sunnayaashii soo raaciyay, oo haddana waxtisaaban ajri xasanaad ku dalbanaya, qufira lahu, horta iimaankiisa waa loo qirayaa, wanaagga iyo sharafta uu ilaahay subxaana wa tacaala kaga dalbana waa loo aqbalayaa. waxaa kaloo siyaado ah, qufira lahu maa taqadama min dembih, dembigii hore ee ka dhacay ee ilaa ramadaantii ahayd ee alla subxaana wa tacaala waa uu ka cafinaya insha allah biidni illaahi tacaala. waxaa kaloo faa'iidaysiga laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah alxirsu calaa takbiirati alixraam. waa qofkoo ilaaliya imaamku salaada markuu xidhanayo inuu la joogo oo la macnoqdo. takbiiratul ixraamka waxaa la yidhaahdaa imaamku markuu allahu akbar yidhaahdo, ama qofka bilow aadmiga salaada jamaacadu tukanayo, imaamku takbiiratul ixraam ayaa sukin xidha. tasliimna waa idi kala farqisaa ama waa idi kala kaxaysaa, oo allahu akbar markuu yidhaahdo adna allahu akbar aad ka daba tiraahdo, salaadiina waa isku xidhanta. assalaamu calaykum waraxmatullah markuu yidhahdana salaadiina waa kala furantahay. saa la ajligeed alxirsu calaa takbiirati alixraam, qofka hadduu ilaaliyo takbiirati alixraamki, oo waxay ka dhigan tahay oo ilaaliyo safkii hore iyo magaranaysaa jamaacada bilowgeedii uu ilaaliyo, ayaa looga faa'iidaystaa. oo rasuulka wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam: man sallaa 40 yowman fii jamaacatin, qofka 40 maalmood ku tukada jamaaca ku tukada, oo jamaacadiina oo haddana jamaacada laftigeedii yudraku soo gaaraya takbiiratu luulaa, takbiirtii koowaad soo gaaray, allahu akbartii koowaad soo gaaray, oo isagoon rukuucin, oon ragcaddii hore rukuucin, imaamku soo gaaray, kutiba lahu waxaa loo qoraa baraa'ataan, 2 arrimood ba inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyo oo ilaahay ka baryeelo ayaa loo qoraa. labadaasi maxay yihiin? 1 waa baraa'atu min annaar, ilaahay subxaana wa tacaala naarta ayuu ka badbaadiyaa oo ilaahay uu ka fogeeyaa, maadaama uu yahay qofku soo dadaali jiray takbiiratul ixraamka inuu ilaaliyo. baraa'ada kale la talo maxay tahay? garanay inuu ilaahay naarta kaga badbaadiye waxay tahay waa baraa'atu min annifaaq, waa qofka oo calaamadaha munaafiqiinta ilaahay ka ilaaliyo. maasha allah, ilaahay baa ka ilaalinaya calaamadihii munaafiqiinta. mar haddii calaamadihii munaafiqiinta ilaahay kaaga ilaaliyana, maxaad aad u baahan tahay adduunka korkiisa? adigoo munaafiq lagaa dhowray, adigoo mushrik iyo gaal lagaa dhowray, adigoo macsiilo lagaa dhowray, adigoo lagugu tiriya awliyada ilaahay subxaana wa tacaala, maxaa ka faa'iido badan? waxaa kaloo bisha ramadaan looga faa'iidaystaa, oo biduuni ramadaan xitaa looga faa'iidaystaa, aljuluusu fi lmasjidi bacda salaati alfajr, qofka oo fadhiista salaatulfajrka markuu salaada subax markuu tukado, horeyba aan ka soo bixin, kitaab la soo baxa, akhrista, markay u soo baxdo qoraxduna 2 ragcadood tukada. markaa rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam: man salla alfajr fii jamaaca, qofka ku tukada salaada subax kuna tukada jamaaca ahaan ku tukada, uma jalasa, oo haddana markaa fadhiista, bidikri illaahi xataa tadluca ashams, isagoo dikri ilaahay akhrinaya, ama qur-aan ha akhriyo, ama takbiirihi taaliya tasbiixa ha akhriye, oo ilaa cadceeddu ay ka soo baxaysa fadhiya. uma sallaa ragcatayn, markaa tukada 2 ragcadood oo sunno ah markay qoraxdii soo baxday kadib, kutiba lahu ajrun xaj wa cumra tamaaman, waxaa loo qoraa ajarkii xajka, qof soo xajiyey ajarkiisii, waa xaj mabruura, soo xajiyey xajkiisii oo kaamila, iyo cumradii oo tamaaman oo ah qaar dhammaystiran oo aan waxba laga reebin
ayaa loo qoraa. maxay kula tahay walaalo adigoo ku nagaada 40 daqiiqo ama 50 daqiiqo masaajidka gudihiisa quraan aad akhriyayso, aad baryayso, ilaahay aad weyneynayso, ilaahay aad keli ka dhigayso, ilaahay xumaanaad ka hufayso, ilaahay aad magaranaysaay aad ku baryayso, ama quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad akhriyayso, ama aad baranayso, ama cid aad barayso, maxay kula tahay faa'iido intaa leegad ku jirto? intaan masaajidka haddana aad ka bixin 2 ragcadood sunnah tukato, faa'iida ku jirta iyo bishaarada ku jirta ma ka maarmi kartaa? ma dhihi kartaa uma baahni? waa maya. maxaanu oran karnaa mid kastoo inaga mid waa u baahan yahay. marka Allah inagu sugo kuwii ka faa'iidaysta ee ku cilmi fala ee ku dhaqma ee Allah iyo rasuulkiisa siday doorteen ku dhaqma. Allah inaga yeelo dhammaanteenba. wax kasta oon haleeyeyna shaydaan iyo nafteeda ka ahaatay, wax kasta oon hagaajiyeyna Allah iyo rasuulkiisa ka sugnaadeen. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa wixii aan hagaajinay miisaanka xasanaadka Allah inoo saaro, wax kastana haleynayna ilaahay dembigeeda iyo dunuubteeda Allah inaga dhaafo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.